ducadan rabno maanta inaan ka sheekayno oon bisha ramadaan ku bilaabano waa duco ku ducoystay abuuna ibraahim abulanbiyaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam. nebi ibraahim muxuu ugu ducoystay ducadaas, annagana maxaan ugu bilaabanaynaa ducadan bisha ramadaan. nicantuu ilaahay siiyey ummaddan waxaa ka mida inuu siiyey bilo ka khayr badan bilaha kalo. bisha ramadaan waa bisha ugu khayrka badan bilaha ilaahay u abuuray. waxaa ku jira habeenka ugu khayrka badan oo la yidhaah leylat alqadr. qofkii sooma bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban dembigiisa dhan waa la dhaafaa. qofkii qiyaam u istaaga dembigiisa waa la dhaafaa. qofkii leylat alqadr u istaaga dembigiisa waa la dhaafaa. habeen walba ilaahay dad ayuu naarta ka xoreeyaa. ilaahayou nagu dar dadka naarta ka xoreynaysid. ilaahayowna waafaji leylat alqadr. ilaahayou ducadeenna aqbal, soonkeena iyo salaadeenna iyo qiraa'adeennaba. allahuma aamiin. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. walaalaha ilaah dartiisu jeclahay meel wal adduunka aad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. maanta waa maalintii ugu horreysay bisha ramadaan, bishii ducada, bishii dembi dhaafka, bishii raxmada. sidaa darteed inshaa allah tacaala maalin walba waxaan kula wadaagi doonaa duco aada u qiimo badan ee ka faa'iidayso, ku ducoyso, hana iloobin walaalaha kale inaad la sii wadaagtid. khayr allah ku siiye. walaalayaal, ducadan raba maanta inaan idinla wadaago waa duco kitaabka ilaahay ku qoran, suurat albaqarana ku jirto. waxaa ku ducoysay ducadan nebi ibraahim calayhi salaam. intaan ducada kuu sheegin siday ku timaaday, nebi ibraahim ayaa wiilkiisa ismaaciil u tegay, ayuu wuxuu ku yidhi, wiilkaygu ilaahay wuxuu i amray kacbada inaan dhiso. ismaaciil wuxuu ku yidhi aabbihiis, yaa abati ifcal maa tu'mar. wuxuu ilaahay ku amray sameey. kadib wuxuu ku yidhi, ilaahay wuxuu i amray inaad i caawisid. se afcaluu yidhi, aabbo waa samaynaa arrintaas. waa baxeen oo waxay bilaabeen kacbadii inay dhisaan. nebi ibraahim calayhi salaam dhagaxuu saarsaarayay. nebi ismaaciil calayhi salaamne dhagaxuu qaadayay iyo dhoobadu aabbihiisu u dhiibayey. markii dhisaayeen, ayagoo kacbada dhisaayo, ay waxay ku ducoysan jireen ducadan raba maanta inaan kula wadaago. rabbanaa taqabbal mina innaka anta asamiicu alcaliim. yaa allah, rabbanaa taqabbal mina innaka anta asamiicu alcaliim. ilaahayou naga aqbal. waxaan rabaa jas inaad ku fikirtid, nebi ibraahim ducada uu rabo, in camalka uu raba in laga aqbalo maxaa waay? kacbuu dhisooyahay oo wuxuu leeyahay ilaahayow naga aqbal. ilaahayow naga aqbal. subxaana allah, aniga iyo adiga halkeen joognaa? waan soonnaayo, waxaan u malaynaa soonkeena in la aqbalay. laa wallaahi, saas ma aha sheekada. allah subxaanahu wa tacaala markuu ka sheekiinayay dadka wanwanaagsan, waaladiina yu'tuuna maa atow wa quluubuhum wajila. caaisha radia allahu canha waxay tihi, yaa rasuul allah, dadkaas ma dadka khamrada cabaaya miya ilaahay ka baqaayo? markaasuu yidhi, laa yaa binti sidiiqa, sheekada saas ma ahan. dadkaas waa dadka soomaayo, sadaqaysanaayo, salaada tukanaayo, oo haddana baqaayo camalkooda in la aqbali waaye. laa ilaaha ila allah. anigii adiga halkeen joognaa walaal? bisha ramadaan maanta waa bilow. waxaa loo baahan yahay ducadan maalin kasta inaad ku ducoysatid. soonka aad soomaysid ilaahay ma kaa aqbali mise ma kaa aqbali? ma ogtahay? may ma ogi. rabbanaa taqabbal mina innaka anta asamiicu alcaliim. nebi ibraahim calayhi salaam oo kacbada dhisaayo wuxuu leeyahay, rabbanaa taqabbal mina innaka anta asamiicu alcaliim. yaa allah, ilaahayow naga aqbal. magac ilaahuu ku bilaabay, yaa rabbanaa. fiiri, yaa rabbi, ilaahay magaciisu rab min asmaa illaahi alxusnaa waa. taqabbal mina, ilaahu naga aqbal. bismiya may, innaka anta asamiicu alcaliim. ilaahayow adiga waa samiicaa tahay, waxaan sheegayno waana maqlaysaa. caliimaa tahay, waxa meeshaan ku jirane waa og tahay. ma daacadaan kuugu soomanahay aniga adiga waaye?
mise istususa u soomanahay sadaqada markaa baxsanaysa ma daacaday kaa tahay mise istustusay kaa tahay rabbanaa taqabbal mina innaka anta asamiicu alcaliim camal kasta markaa samaysanaysid ku ducayso oo ilaahay waxaa weydiisataa inuu kaa aqbalo wahb sheekha la yidhaaho caalimka wahbi ibn alward markuu aqriye wuu ooyey markaasaa yidhi maxaa la oynaysaa markaasuu yidhi subxaana allah uu yidhi آية مركو أقري وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل محيدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عالم كسوء مركز المحال أوينيسا مركز سبحان الله يا خليل الرحمن ترفع قوائم البيت خليل الرحمن نبي واي أبو الأنبياء واي إلهي خليل كدكتي وحور يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وحادثو يساي غوريغي رحمانك waa guriga ani adiga takna waa maalin walbo waa qibladan u jeesana waa gurigaas dhisoysaa ومع ذلك مشفق waxa ka baqaysaa alla yataqabbal amalan ma waxaad ka baqaysaa adigoo saasameynaysid guriga ilaahay dhisaysid miya wali ka baqaysaa amalkaaga in la aqbali waaye ya subhanallah ya subhanallah ilaahu amalkeena aqbal ilaahi amalkeena aqbal ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا يا ربي إنك أنت السميع العليم عملك أن سمينا ما دام ناقص يحي سأربت أن أسمينين ذنبي أن قلايو معصية أن قلايو وحال هذا هي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهي وكو توبتك يعني توبة ذينا أقبل ربنا تب علينا وإله نجا أقبل توبة ذينا إنك أنت التواب الرحيم دعاء لبعضنا في ريم حوايه لبما مقعيدا كسور دماتي إنك أنت التواب الرحيم مقعيد إلهي محاكمة التواب رحيم تواب رحيم محاكمة سبحان الله إلهي وحوي دي سنة توبة ذا أقبل عمل وناكسن النبي جينا سميه نبي إبراهيم عليه السلام عمل وناكسن وسميه مع ذلك وحويري إله إذا أقبل أذيك الصونك آسونتد إلهي مويدي ستا إنو كا أقبله صلاة آتكتت مويدي ستا إنو إلهي كا أقبله صدق ذا بحسني ست مويدي ستا إنو إلهي كا أقبله قرآن كانت أقرني ست مويدي ستا إنو إلهي كا أقبله تراويح أما صلاة أنا أتكني ست مويدي ستا إنو إلهي كا أقبله هذا مويدي سن ولا لو ويدي سوحي ما أنت كدام بهايو نبي إبراهيم هدو ويدي سنجل عني هذا الكين جوكنا ولا ليال دحنا وهلا بدو عقابهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سيدي عادل وهاجرت وكسو علينا إن شاء الله أنت كسو علينا وحرا فائدة أنا كسو علماء دعاء فائدة بدنا وشيء تنكو بعد حيرهن وإنا كفكرت أهمية القبول عمل كاجا إن لا أقبل وإنا كشقيسد سيدي أجا شقينيسا إخلاص أسمي دعانا الراعي إخلاص أسمي دعانا الراعي طلبات وحيدهن وحاواي آيادا وحان كفائدي سنينا الدونك إنو ملازم سؤاشي إلهي إنو مركز ويديس إنو عمل قيس أقبله وكو قصبنتي إنا ويديستد سلف كيهور اللحب لوت رمضان كدي بحيدي إله صونك أنا أقبل أيده جرين فإذا سدحات وحيدهن ينبغي للعبد أن يكون في حال عبادته لربه وعبادته خائفا وعاداته خائفا الدونك وحالو باهاي مركو إلهي وحويدي سناي أما أوسميناي إنو بقو محوك بقى عمل كاقا إن لا أقبلين انت كلمة لكن راجيا إنا تهي إنا رجيسد إنو إلهي سبحانه وتعالى عمل كاقا أقبله تنشرات وحاوي ملازمة التواضع قاركين وحاوي بشهر رمضان هدو صوم كبر وكالبحا جزء القرآن وأقريه كبو كبري ودعو سحوس ملا قفك وقطر سنة ساسة سمين ما الله أقبل مثل ما أقبله ما أجد ولاد دعاء بتصو خير الله كسي سعادة وهاجرت وكسي قلنينا دعاء إن شاء الله تعالى دقيسو كنا عمل فل إن شاء الله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إلى سبحانه وتعالى وحويديسن دنبيكين ونضافو جنة الله نوكل من فضل كد عيسو ولا لها كلام أسي قد بي وخير الله كسي بخير هنقول بالرمضان على وجراي سي قد بخير كبدي خير الله كسي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.